السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كارا. برنامج كان وبرنامج لحريرة أرمها عافماتك هدي لها إدمو برنامج كيغا مانتا وحا نوغو مرتعة منا فارح oo aanu rabno inaanu ka wareysano arrimaha la xiriira talaalka MMR-ta iyo xanuunka jadeecada. Marka ugu horeysa muna ku soo dhawow channelka gaarka ah ee St. Cloud Somali Radio iyo TV-ga iyo idaacadda Soomaalida ee magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijkan. waa dhawahayaan mahadsantahay Axmed. waayahay barnaamijkaygan inta aanan hore u gelin muno bal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo adiga ku weydiiyo dabcan waxaad ka shaqaysaa caafimaadka wax yar waxaan rabnay inaan dadka la wadaagtid muna aqoontaada iyo hadda halka aad ka shaqaysid maadaama barnaamij gaar oo caafimaadka uu yahay barnaamijkan. waa mahadsantahay horta markay hore waqti badan waxaan ka soo shaqaynayay public health bachelor baan public health ku lahaa waqti badan community-gaan ka soo shaqaynayay intii hadda dambe waxaan ahay family nurse practitioner oo la shaqaynaa ilmaha yaryar ilaa dadka waaweyn so waa family from birth to hospice waxa la dhaho so clinic baanu ka shaqaynaa Minneapolis dhexdiisa ku yaala. waayahay sidan sheegayba barnaamijkayagan maanta wuxuu ku saabsan yahay caafimaadka gaar ahaan arrimaha talaalada gaar ahaan talaalka jadeecada iyo xanuunka jadeecada. sidaan ognahay dad badan oo Soomaaliya ama ku hadla afka Soomaaliga ama Soomaaliya ayaa waxay ku dhaqan yihiin gobolkan Minnesota sidoo kalena waxay aad ugu safraan dibadda gaar ahaan Africa ama East Africa. su-aasha ugu horeysa oo raba inaan ku weydiiyo waxa weeye xanuunkan jadeecada guud ahaan bal inaad dadka la wadaagtid xanuunkaasi waxa uu yahay iyo bal taariikhdiisa xilliyada uu dhaco ama uu dhacayba horey bal marka ugu horeysa aan ku soo dhawow. jadeecadu waa xanuun waqti badan soo jiray talaalkiisana waxaan u malaynayaa ilaa adigu 60yadii talaal buu lahaa talaalkan ka hadlayno waxa weeyaan marka hore individualized buu ahaa so keligiis buu ahaa kadibna waa MMR saddex la iska dhigay mumps measles rubella so saddexdaa condition talaalkooda la isku daray marka waqti badan ayuu soo jiray talaalkaas intii la bilaabayna numberkiisu wuu yaraaday ka hor wuxuu ahaa dadka aad buu ugu dhici jiray waana dili jiray aad xanuun oo maaragtay markasta jira sida covid kan oo kaleeto buu ahaa laakiin hadda numberskiisa waxa yareeyay talaalka la qaadanayo ilaa waqtigaasna waa soo jiray waxaan maaya 1970s-kii baa talaalka saddexda xabo laga dhigay laakiin intii horeeto jadeecada gaar baa loo bixinayay talaalkeeda. waayahay talaalka jadeecada waxaad noo sheegtay inuu yahay saddex talaal oo isku jira oo afka Ingiriisiga loo soo gaabiyo MMR marka saddexduba ma waxay la xiriiraan jadeeco bay la xiriiraan oo bal ku soo dhawow. waa saddex condition oo saddex xanuun oo infection oo la isku daray waxa weeyaan qaama qashirka midka loo yaqaano jadeecada iyo jadeecada oo jarmalka mid la dhaho saddexdaas weeyaan marka convenience ahaan baa la isugu daray saddexda talaal ma aha isku mid maaha laakiin way isu symptom dhow yihiin. waayahay jadeecadaanu mar kale aanu ka hadlaynaa iyo talaalka loo qaato sideedaba qofka marka ay jadeecada ku dhacdo maxaa lagu gartaa waa maxay calaamadaha lagu garto qofkaasi xanuunka haya inuu yahay jadeeco. jadeecada markay qofka ku dhacdo waxaa laga yaabaa ilaa 4 maalmood inay jirkiisa ku jirto uusan ogeyn inuu jadeeco qabo laakiin marka ay xanuunka sida uu ku dareemay marka hore waxa weeyaan sidii hargab oo kaleeto qufac xumad yariisa duuf iyo runny nose indhaha oo ilmaynaya kadib marka ay dhowr maalmood sidaasi sii socoto baa waxaa bilaabanaya finanka yaryar ee dadka wajiga ka soo baxaya ama madaxa hoos bay marka ugu soconayaan jirka dhan
waxaa la dhahaa rash around rashka weeyaan waa firan yariisa oo jidhka hoostiisa maqaarka hoostiisa ku jira oo cas oo markaa wejiga kasoo bilaabanaya kadibna jidhka hoos ugu daadegaya oo ilaa asbuuc ku soconaya jidhka saasay marka horeeto ku bilaabataa waayahay xanuunka jadeecada hadduu tusaale ahaan qof uu qabo xanuunkaasi ma la kala qaadaa waxaan igu maqaalaah inuu yahay xanuunada sida aadka u fida oo ay dadku kala qaadaan jadeecada waxa weeyaan sidaan idin sheegay waxa laga yaabaa qofku inuusan ogeyn marka horeeto inuu qabo oo hadduu xataa kaa dhuuman lahaayo uusan expose kugu samayn lahayn laakiin siyaabaha lagu kala qaadaa waxa weeyaan qofku waa idin sheegay waa qufacaya marka uu qabo xanuunka wuu hindhisayaa marka haddaad qofkii oo hindhisaya qufacaya la joogtid waa airborne inaad ka qaadid baa laga yaabaa hawadaas oo aad neefsatid haddaad qol yar ku wada jirtaan ama elevator isla soo gashaan waa highly contagious iyadana saas waa lagu kala qaadaa waayahay dabcan waxay ogaayeen dadka xilligii hadda koronaha sida loo kala qaado waxaan u malaynayaa aad buu ugu dhow yahay marka ay neefsiga iyo taabashada iyo qofka markaa ku dhowaatid inay marka dadku ay fahmaan xanuunkan siyaabaha lagu kala qaadi karo dabcan dadka arkay ama taariikhdiisa xanuunkan yaqaanana way fahmi karaan xanuunkani khatarta uu leeyahay su-aal kaloo dheeraada haddaan ku weydiiyo hadda waddankan maraykanka aad baa tallaalada loo qaataa xanuunaadka badan oo tallaalada laga qaatana way ku yaryihiin ma dhacdaa xilligan haddan aanu joogno waddamo dibadda ah inuu xanuunkaasi oo ka dilaaco oo ku dhaco dadka jadeeco mase dhacdaa mararka qaarkood gobolkan hadda minnesota inay dad dibadda ka yimaadaanoo lagu arkay xanuunka jadeecada hadda sanadka waxa weeyaan bishii afraad baynu hadda maraynaa hadda inoo dhalatay inta ilaa January ilaa hadda 3 statekeena lagu hayaa oo ay ku dhacday jadeecadu Africa kaba sii badan waad ogtahay Europe waa meelaha oo la iska ilaalinayo Europe Africa haddaad u socotid inaad sii qaadatid South America haddaad u socotid inaad talaalka sii qaadatid mar kasta waa inaynu islaalintu mar kasta waa bannaan tahay 3 qof bay already maraysaa sanadkanba waayahay haddaba aanu isfahano dabcan waa xanuunkii iyo jadeecada gaar ahaan aanu ka hadlayno MMR-ka aan u imaado MMR-ka anigu waagii hore waxaanu haystay carruurta markay halkan muhiimiyaddu ay tahay inay qaataan laakiin maan moodooyna hadda qofka marka uu safrayo oo kale in uu qaato tallaalkaas ama loo baahan yahay hadduusan hore u qaadan inuu qaato marka haddii uu hadda qof ka safrayo gobolkan Minnesota muhiimiyad miyay leedahay inuu iska tallaalo jadeecada ama uu hubiyo inuu tallaal ka qabo jadeecada way tahay waayo da'a ma laha qaadniinka jadeecadu da'a kasta waad ku qaadi kartaa marka hore muhiimka waxa weeyaan inaad dhakhtarkaaga u tagtid soo fiirisid tallaalka inaad hore u qaadatid waxa laga yaabaa inaad iska ilowday oo mar horeeto labada talaal lagu siiyay ama markaad waqtiga waddanka soo gashay ama mar dhexe talaaladu way iska badan yihiin baad aragtay markaad waddanka nimaado wax badan baa layna talaalaa marka inaad marka hore soo hubisid ilmahaagana soo hubisid inay talaalkii qaateen haddaad schedule-koodii la socotaad ogeyd in xabadi u dhiman tahay ama aysan labadiiba wada qaadanin inaad la soo hadashid dhakhtarkooda tidhaahdid waanu baxaynaa waddankaan ka baxaynaa talaalada maxaanu u baahannahay waa important African aadaya ama meel baan u socdaa MMR-kii baan doonayaa ma qaatay ilmahaygu mise ma uusan qaadanin hadduusan qaadanin markaa schedule-ka si lagaala hadlo of course dabcan waa labada talaal hal mar lama wada qaadan karo waa in waqti u dhexeeya marka adigu haddaad qof weyn tahay aadan hore u qaadanin waxa laga yaabaa inaad maanta haddaad mid qaadatid 28 casho kadib aad ka kaleta qaadatid waa live vaccines waa waxa la dhaho layskuma daro hal mar ma wada qaadan kartid so waa inaad ka hor intaadan bixin u tagtaa dhakhtarkaaga oo la hadashaa si aad labadaadaba u sii wada qaadatid waayahay dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inayan ogeyn laakiin maadaama aan xarumaha caafimaadka muddo anigu naftiga ka shaqaynayay dhinaca turjumista waxaan arkay klinikyo gaara oo laleeyahay ama dhakhtarro gaara u tag qofkaasi oo travel clinic la yidhaahdo
kaasoo si gaara kaaga caawinaya waddanka ah u safraysid haddii ay jiraan wax tallaalo ah oo gaaroo loo baahanya inaad qaadatid ama marka qaarkood meelaha malaariyada ku badan tahay oo kale dhakhtarku ku odhanaya dawo malaria oo kale sii qaado si aadan meesha ugu xanuunsan oo aad marka ma jiraan klinikyo gaara ee uu qofku gobolka Minnesota uu tegi karo seesi ka heli karaa ma in dhakhtarkaaga weydiisidba kusoo dhow and clinic way jiraan travel clinics meel kasta way ku yaalaan all the community clinics oo dhan way sameeyaan travel clinic and dhakhtarkaaga caadiga anywhere aad joogtid travelka very experienced ba hadda lagu yahay especially maxaa la dhahaa jadeecada aad ba kulli isku meel baa looga soo wada jeestay and travel clinica ku dhow markaas fiirso u tag wax kale ma qabtaan travel clinics waa expert bay waxay ku yihiin wadamada iyo wixii ka socda haddaad West Africa aadaysid yellow fever hadda shaqadooda waa intaas aad iyo aad bay u yaqaanaan schedule-kaagana way hayaan oo maaragtay magaaladan waxaan u isticmaalaa wixii vaccine oo dhan mic so wixii aad hore usoo qaadatay oo dhan mic bay kasoo baxayaan wixii markaa kaa maqan bay ku siinayaan iyo waxyaalaha aad u baahan tahay oo markaad wadankii tagtid malaria iyo calool xanuunka iyo waxaas oo dhan na way ku sii siinayaan tallaaladaadiina way ku sii siinayaan wixii kaa maqan markaas haddaad hore u qaadatay qasab ma aha inaad jadeecada hadda iska sii talaashid laakiin inaad ogaatid way fiican tahay waayahay dadka qaarkood walaac bay ka qabaan inay caruurta yaryar ay siiyaan tallaalka uu ku jiro tallaalka jadeecada ee loo yaqaano MMR-ka waa maxay waalidka badidii walaaca ay ka qabaan inay caruurtooda ay siiyaan MMR-ka bal ku soo dhowow saashaas walaaca waxa weeyaan inaan information badan oo dadka ku filan si ay ku helaan ay marmarka qaarkood waalidiinta ku adkaato ama dhakhtarkay u tageen waqtigiisa yar yahay oo an explanation fiican dadkii la siinin iyo waxyaalo iska beenaho dee xaafadda iskaga jira magaalada oo ah inay xanuuno kaleeto ku xidhmadaan markaad talaalkaas qaadatid kuwaasoo iyagana iska ahaa marka horeeto been abuur nin sameeyey waqti hore oo aan la proof gareeyay intii ka dambeysay inaysan run ahayn marka haddaan anaga nahay qolyaha iyaga caafimaadka ka shaqeeya mar kasta waxaan ku dadaalaa inaanu waalidka education siino marka iyaga horeeto anagoo talaalka haddaad su-aal ka qabtid shaqadayadu waxa weeyaan inaanu jawaabtiisii ku siino ama schedule-ka ha ahaato la qaadanayo ama ha ahaato waxyaalaha qofku ilmuhu dareemayo marka uu talaalka qaato ama ha ahaato wixii cilmi baaritaano oo talaalka laga sameeyey oo ama CDC samaysay ama World Health Organization subisay in aanu kula share gareyno weeye shaqadayadu waaya marka si sax haddaan kuu fahmay dadka qaarkood oo waalidiinta ah walaac bay ka qabaan MMR-ka in uu la xiriiro xanuunkan autism-ka marka waxaad leedahay wasaaradaha gobolka iyo heer federaal iyo heer caalamiba islama xiriiraan xanuunka autism-ka iyo talaalka la yiraahdo MMR-ta may wax la hayo hadda ma jirto shuqul iskuma laha qof autism waxa weeyaan talaalka ay ka timaado weli lama hayo waxaa jirtay in beeno nin qoray ay jirtay oo dad badan oo Soomaaliya ay arkeen oo ay dhaheen loo maleeyay run waayo sidii research camal buu inooga dhigay laakiin agenda uu isagu iska lahaa bay ahayd iyo been abuur uu isagu suubiyey ilaa hadda wax xiriira ma laha talaaladaas talaalka MMR-ka iyo autismkuna waa gaar jadeecaduna waa gaar talaalkeeduna shuqul iskuma leh waayo weliba waxaa la hayaa inaan talaalada iyo autismku aysanba meelba iska soo gelininba generics weeye kanna waxa weeyaan xanuunkan oo viruska ah talaalkiisii waayahay barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij gaara aan uga hadlayna arrimaha caafimaadka gaar ahaan xanuunka jadeecada iyo talaalka MMR-ta
waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo haddii caruurtu oo kale ay maraykanka joogto ama qofka weynba waa ognahay shuruucda wadanka gaar ahaan markaad dalbanaysa sharciga green cardka oo kale waxaa lagaa rabaa tallaala inaad qaadatid marka haddii uu qofku tallaalka hore u qaatay mmrta inuu rabo inuu wadanka ka safro tusaale ahaan anigoo kale aad baan u safraa tallaalkana horaan u qaatay marka ma qasab buu igu yahay inaan tallaalka qaato mise waxaa weeye qofka aanan qaadan qofka laga hadlayo haddaad hore usoo qaadatay ma baahnid inaad qaadatay tallaalka mar kaleeto tallaalku waxa weeyaan waa laba dowska xabadda u horeysa haddaad qaadatay 93% effective weeyaan haddaad talabaad qaadatayna waa 97% effective waa boqolkiiba 97 so 3% baa laga yaabaa inuu kugu dhaco xanuunkaas marka uma baahnid mar labaad inaad qaadatid haddaad qof hore u qaatay tahay haddaad shaki ka qabtid ood leedahay inaan qaataa laga yaabaa ma hubo dhakhtarkaaga u tag siyaabo lagu eegi karaa way jirtaa dhakhtarkaaga la hadal laakiin haddaad tahay qof aan hore u qaadanin inaad qaadatid aad iyo aad bay important u tahay naftaada iyo nafta dadka kaleetoba especially haddaad aadaysid wadamadaas ay vaccine ku jirin oo qof kasta aan la talaalin sida Africa oo kaleeto dhakhtarkaaga la sii hadal talaal miyaan u baahanahay maxaa iga maqan markaas haddaad jeceshahay in lagu print gareeyo vaccinekeena dhan meel baa la isugu ururiyaa waa meeshu waa lagu soo print gareeya wixii kaa maqan wixii ilmahaaga ka maqan kulligood aad wada arkaysid marka aad qaadanaysid talaalkaad u baahan tahay mmrtoo kaleeto clinic kasta way taala ma aha inaad special clinic u tagtid oo ama vaccine ama tagtid travel clinic ama meel kaleeto clinic kasta bay taalaa oo laguna talaali kalaa waayo waxa la rabaa in talaaladu ay markasta accessible yihiin oo aanay u baahnayn inaad baadhbaadhido meelo fog u raadsatid dhakhtarkaaga u tag waayahay su-aashan hore kuma aan weydiin laakiin sidaan ognahay dad badan baa hadda gobolkan Minnesota ku nool oo ama bulshada Soomaalida ha noqoto ama dadyo kala duwan oo aad u safra waliba waxaa jira qoysas hadda marar arkaysa loo raro East Africa oo kale bariga Africa inay ku noolaadaan haddana dib wadanka ugu soo noqda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidiisaba talaalka mmrta daada ahaanta ilmaha halkan ku dhashay goormaa la rabaa in la siiyo haddii ise ilmaha markuu iskuulka aadayo oo kale ma ka mid yahay tallaalada ay dowladdu ay ka rabto ama iskuulku ay ka rabaan inay ilmahaasi lasoo tallaalay ama tallaalada u qabay waa la iska rabaa iskuulka unless aad exempt iyo de siyaabo kaleeto haddaad samaynaysid taas weeye laakiin waa mandatoryga kuwa iskuulka u ah weeyaan talaalku waa labo markuu ilmo yar yahay schedule baa lagu socdaa talaalada kuwa bilaabanaya maalinta uu dhasho ilaa markuu dhowr iyo 10 jiro oo HPV-ga la dhahayo mmrku waxa weeyaan markuu ilmuhu sanad jiro 12 bilood ka labaadna waa ilaa 4 iyo bar ilaa 5 baad siinaysaa 4 sanadka afraad waa loo bilaabi karaa hadduu qofku baxayo aad leedahay waxaan rabaa inaan sanadka ka hor inaan maxaan rabaa Afrikaan aadaya in la talaali kara ilmaha gabsa lama talaali karo su'aal weeye mogtahay ilmahaas hadduu 6 bilood gaadhay dhakhtarkiisu exception inuu u suubiyo waa laga yaabaa oo sanadka ka hor uu sii qaato 4 sano ka hor oo kiisa labaad sii qaato waayo safety-ga ilmahaas baa wax kasta ka important garaysan xanuunkaas sidaynu ka hadalay waxa weeyaan waa si fudud baa lagu kala qaadi karaa dhibaatooyin badanna waa qofku waa maraayo ilaa dhimasho waayahay maxay tahay talada aad siinaysid ama dowladdu hadda tusaale ahaan talada bahda caafimaadku ay siinayaan haddii hadda waalid dhegaysanaya barnaamijkan oo caruur yaryar ay u joogto waalidkaasna ama aabbaha ama hooyadu ay qorshaysanayaan inay Afrika u guuraan marka taladiinu waxa weeye ilmaha intaanan wadanka laga kaxaynin hubi in ay qabaan talaaladooda idil maxay tahay talada u jeedinaysaan taladaan u jeedinaya waxa weeyaan xanuunkan waa contagious si fudud baa lagu kala qaadaa dhibaatooyin weyn saameyn weyn buu ku yeeshaa qofkii qaada ama ilmaha ha ahaado ama qof weyn oo difaaciisa hooseeya ha ahaado waa saameyn weyn buu qofka ku yeelanaya sii fiiri talaalada haddaad su'aal ka qabtid u tag dhakhtarkaaga maxaa iga maqan markastaba haddaad bixaysid travel clinic important weeyaan inaad sii martid markastaba waayo waxaad u baahan tahay dawooyin aad sii qaadatid oo malaria ha noqoto wax kale ha ahaato
markaas fiiri waxa kaa maqan haddii ay kaa maqan yihiin markaas jadeecada talaalkeedu markaas ay ku iskashal garaynayaan oo ku sii siinayaanay taas ama adiga ha ahaato ama ilmaha ha ahaato ama qof weyn oo waalidkaaga ah oo kusii raacaya ha ahaato waayahay barnaamijkayagan maanta intaasaan ku gebagabeynaynaa haddii ilaahay idmo barnaamijkayagan maanta waxaa nagala qayb qaadanaysay muna faarax oo iyadu title aad u dheer leh oo haddana ka shaqaysa cusbitaal ka mid ah cusbitaalaadka hadda ku yaala gobolkan Minnesota barnaamijkan wacyigelinta aana nagala qayb qaadanaysay gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota oo rabta inay fariintan ay gaarsiiso bulshada dhageysata idaacaddan iyo telefishinka badaawanaysa aad iyo aad baad wanaal u mahadsantahay muna waayahay barnaamijkayagaas intaasaanu ku gebagabanaynaa wuxuuna ahaa barnaamij ku saabsan caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada gaar ahaan xanuunka jadeecada waxaana marti noogu ahayd barnaamijka maanta muna faarax oo iyadu ka shaqaysa cusbitaalaadka gobolkan Minnesota intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu